gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada badeecadaha Soomaaliland oo ay weheliyeen saraakiil sare oo ka socotay xafiiskaasi ayaa maanta kulan la qaatay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale madaxda dekedda Berbera iyo kastamka cashuuraha waxaana ujeedada socdaalkoodu ahayd xog ururin ay ku sameeyeen qorshaha shanta sano ee soo socotay hay'addaasi iyo sidoo kale hawlo ay ku dardargelinayeen shaqada xafiiskaasi uu qaabilsan yahay qaranka Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf oo isagu halkaasi ka hadlay ka warramay ujeedada socdaalkoodan ay ku yimaadeen Berbera saaka hawl culus aanu ka bilownay gobolkan saaxil oo imikana aanu la fadhino mas'uuliyiintii heer gobol barasaabkii gobolka maayarkii degmada iyo maareeyihii ku-xigeenkii dekedaba hawshaas iyo taliyihii booliiska gobolka hawshaas oo daarnayd in hay'addu ay ku jirto sidii aanu samayn lahayn qorshihii 5 sanadood haddii ilaahay ka dhigo aanu ku shaqayn lahayn وحق ururis aanu sameeynay haday noqoto maxaan ku yiraahday dekedda iyo wada shaqaynta dekedda naga dhaxaysa kastamka iyo muxuuha gobolkaba guud ahaan hawshaas oo aanu saaka u nimid ka gudi ahaan inaanu u kuurgalno xafiiska gudoomiyaha gobolka ayaan hadda ku suganahay ujeedkeennuna wuxuu ahaa inaan ku soo gabagabayno hawshii aynu wadnay saaka qaranku inoo igmaday ee kormeerkii iyo istiraatiiji bilaankii 5 sanadood ee soo socota Berberna ay tahay xarunta ugu weyn ama xudunta hawsha ay rabno qaranka inaan u qabanno halkii laga yegleen lahaa ama laga bilaabi lahaa beeskeeda hore duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadnaqay socdaalkan ay ugu yimaadeen magaalada Berbera ay doonayaan inay ku dardargeliyaan hawlaha shaqo ee xafiiskaasi uu qaabilsay qaranka Soomaaliland iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay shaqaalkan maraya gudoomiyaha dhowrista tayada runtii aad iyo aad u celino in weyn oo qarankan uu qabo ay tahay oo baahi weyn oo gobolka gudoomiyaha waxa uu horeeyaa sida uu askarigu u difaacayo dalka ee waddiisa qorayo oo ilaalinayo inayna loo badbaadadii ummadda way haddii aan quality control la helin wax kasta ku soo galaya wax kasta oo xanuun kasta ku soo galaya marka aad iyo aad baan uga faraxsanahay hawshan aad gacanta ku haysaan oo runtii midhadhal fara badanina aad ka gaadheen imikana aad rabtaan hore inaad si maxaan ku soo gudubtaan marba dad mar laba wada gaadho talooyinka hawlo way isla soconayaan ka gobol ahaan annagu halkan ku yaalo marinkii ugu weynaa ganacsiga dalka ka soo galay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa mas'uuliyiintani waxay sidoo kale ay kormeer ku soo mareen dekedda weyn ee Berbera iyo sidoo kale xarunta shidaalka lagu baadho ee Berbera iyadoo halkaasina ay warbixino kala duwan ay ka siiyeen maamulka xarunta shidaalka lagu baadhay ee Berbera oo ka warramayay tayada shidaalka yimaada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland socdaalka mas'uuliyiinta ayaa daba socday mid ay ku soo mareen magaalada xuduudka ku taal ee Wajaale iyagoo sidoo kale sheegay in socdaalka dardargelinta hawlaha xafiiskaasi ay ku tagi doonaan qaar ka mid ah gobolada dalka geesta kale gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay qaar ka mid ah shaqaalaha iyo ka soo baxay mashruuca shaqo qaran ee lagu soo qoray hay'adaha kala duwan ee laamaha dawladda gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa halkaasi hadallo dardaaran uga soo jeediyay shaqaalahani ka howlgali doona hay'adaha kala duwan ee laamaha dawladda aad iyo aad baad u mahadsantiin danta qaranka sida heeganka ugu tihiin baan idinka mahad celinayaa sidaad mar walba diyaarka ugu tihiin inaad hawsha nabadgelyada iyo horumarinta gobolka nagala shaqaysaan halka lagu furay oo kaliya kuma ekaanayso shaqadaad haysaane taa waa sax meelaha kale waxay dhibaato qarankeena ku ah wixii horumarka gobolka u fiican waad ka tala bixinaysaan waa u baahanahay taladiina markasta gamca wada jir bay wax ku gooyaan taladiina iyo xooggiina iyo muruqiinaba diyaar baan u nahay inaynu si wada jira inagoo isku wada dooban maamulkii gobolka iyo degmooyinkii intaba inaynu meel gamcays wada qabsano qaar ka mid ah xubnahaasi iyaguna mashruuca shaqo qaran oo saaka ka hadlay xafiiska gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa ballan qaaday in ay ka soo bixi doonaan shaqooyinka uu qaranku u eegmaday ardayda qofka si professionkiisa wasaaraddu qusayba